أبيد كرنمد والنوقات هل من الخاين دولة الصومالية دلتي كرنمد بحسن الخاين warbixintan waxaan kaga hadlaynaa xaaladda gobolka Gadowaad sidii hal sano kadib laga soo bilaabo horaantii sanadkeena ka soo gudubnay ilaa ay hadda maamul ka jira gobolka mid kastoo yimaado markii xilka laga qaado waxay soo bandhigayeen wax qabad ku eg booqashooyin safar ay ku tagayeen degmooyinka iyo dhagaxdhiga mashaariic aan waxba loo haynin ma jirto ilaa ay hadda mashaariic horumarineed oo ay fikirkiisa leeyihiin maamulka gobolka isla markaasna lagu maalgeliyay canshuurta laga qaaday bulshada gobolka Gado ma jiro ilaa ay hadda isbitaal ay maamulka hirgeliyeen iyadoo ay aad u badan baahida caafimaad ee degmooyin gobolka ka jirta ma jiro ilaa ay hadda hal iskool dugsi hoose oo canshuurta shacabka laga qaaday maamul ku dhiseen sidoo kale ma jiro hal laami oo laga dhisay degmooyin gobolka iyadoo ay aad u jiraan baahida loo qabo laami haddana maamul kastoo ka jira degmooyin gobolka waxay sheegayeen inay wax qabteen dowladda federaalka intay gobolka Gado maamuleysay waxaa muddada sanadka ugu dhiman maalmo qura maamulka gobolka Gado dhowr jeer ayay u safreen deegaanka Bohol Garas oo deegaan ahaan ku yaala dhulka fog degmooyinka gobolka maamulka booqashii soo dhaweyn mooyee wax kale uma qaban bulshada halkaas ku nool dhaqaatiirta maamusha isbitaalka weyn ee deegaankaas waxay codsanayaan in isbitaalka weyn ee deegaankaas la soo gaaro daawooyin Bohol Garas way ka fog tahay gobolka Gado mana lahan jiri laami loo maro toona si taas bedelkeeda loo helo maamulka gobolka waxay dhagax dhigeen garoon diyaaradeed bulshada deegaankaas oo baahi weyn u qabay inay helaan waday u maraan magaalooyinka waaweyn ee gobolka ayaa si xilqaan ah ku bilaabay dhismaha garoonka laakiin maamulka gobolka waxa ugu dambeysay maalintii ay dhagax dhigeen garoonka welina waa sidiisa halkaan waxaan ka cadaynaynaa annaka deegaankan gobolka Gado kamid ah ee deegaanka Bohol Garas la yiraahdo in la yiri shalay garoonkaas dhibaato ka jirto macnaha lama diidi karo annagu waxaan idin sheegaynaa community-ga deegaanka waa annaka odayaasha deegaanka waa annaka waxaan idin cadaynaynaa Soomaaliya burburkeeda adduunkeeda waa meesha nabadiid imaan Bohol Garas waxa way adduun waxa way meel alla meeshi noocaas ahayd in lagu sheego nabadgelyo darro waa waxaan ka xunahay dowladda federaalka ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadda la magacaabay u horeeyaan waxaanu leenahay deegaanka annaga waa nabadgelyo halkani waa deegaanka Kooray bulshada deegaanka ku nool iyagana waxay sheegayaan in magaalooyinka waaweyn ee gobolka aysan tagi karin waxayna sheegeen haddii ay tagaan in la xirayo هذا دولة ومسائل كورن هذه إنه دولة وسنة لأن قاعدة إنه قبضه هيك ما يكجر أبيد كورنمد والنو قاري هل من الخاين دولة الصومالية دلتي كورنمي بحسن الخاين ما دي إنه دولة الصومالية دلتي يا إنه كورنمد مداري إنه قاري هيك وبارك قبل بيسي من الخاين جيك ما يوا أنت حرفادني صدق إلا مسنة صدق كوسنا يا هايني جيك ما يوا جيك كورنمد لا صومالية هايتي جيك دلتي حتى دلتي حدنا والنو قاري واليوم هاليوم هو الحرمة الأخرى لأن من شيء لا تذكر شيء لا تذكر gudoomiyaha gobolka iyo ku xogeenadiisa Malaan Xafiis ee ku shaqeeyaan dhawaan ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Axmed Buula Gareed gudoomiyaha cusub waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo dhaqaalaha gobolka waxaan rabnaa inaan wax ka qabanno haddii la yiraahdo gobolka horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa inaan midayno dhaqaalaha inuusan dhaqaalo daadanayo uusan noqonin dhaqaalo xakamaysan oo hagaagsan oo nidaam leh inuu noqdo way haddana waxaan rabnaa inaan qabanno isla markaasoo haddana aan rabno dhaqaalo kasta oo la habeeyo la hagaajiyo in haddana deegaanka wax muuqdo laga sameeyo insha allahu tacaala kasoo qaad hadda baled xaawo kale markii la yiraahdo mashruuc marka la samaynayo qiimayn baa lagu sameeyaa dad aqoon-yahaninaantii rag iyo haween aqoon lahayn hor fadhiyo waxaan la hadlayo waa dad aqoon mashruuca marka la samaynayaa boqolkiiba konton hadduu yahay lama sameeyo boqolkiiba konton wixii ka dheer iyo mashruucaas gadmahayaa oo hagaagaya wafdi uu hogaaminaya wasiirka waxbarashada xilligaasi uu ahaa Cabdullaahi Goodax Bare
ayaa gobolka soo gaaray wafdiga waxay dhagax dhigeen ilaa ay dhowr mashaariic oo ay ka mid ahaayeen dugsiyo waxbarasho. Halkani waa degmada Doolow waxaa dhagax dhigaya dugsiga waxbarasho wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamed Jaabir oo qayb ka ah wafdiga dowladda ay gobolka u soo dirtay. Intaasoo mashaariic maanta waxba lagama hirgelin oo markii la dhagax dhigay ayaa ugu dambeysay. wafdi waxaan ahayn maanta uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo kala duwan. waxaan u imaanay waxay ahayd in maanta iskuuladaas uu sheegay wasiirka la dhagax dhigo Hirbahare, Doolow iyo Badaxaaw. waxaana qorshaha noogu sii jiray Ceelwaaq iyo Luuq hadduu Ilaahay yiraahdo. runtii labadii sano u dambeysay waxaan dardargelinay waxbarashada gobolada iyo caasimadaha gobolada. sidaa la socotaana dalkan wuxuu u baahan yahay in waxbarashada la xoojiyo si loo soo saaro ubad wadaniyiina mustaqbalka dalkaana wax ka tari kara. wax badan ayaa la qabtay. maanta waxaan ku faraxsanahay degmada Doolow inay hesho iskuul. runtii dhulka aad u soo hesheen iskuulkan wuxuu tusinaysaa sida aad ugu diyaarsan tihiin in aad ubadkiina mustaqbal fiican iyo meel wax ku qabtaan ugu talagasheen. dhulkan runtii waa dhul aad u weyn. degmada Badaxaaw waxay ka mid tahay degmooyinka nabadoon ee dhaca waqooyiga gobolka Gedo, balse aan helin hankii dadkeeda kala hayeen maamulka ay magacaan hoos tagaan. bidhaanta maanta muuqato ka hor magaalooyinku uu saameeyey burburkii dalka ayay ka mid ahayd. waxay kasoo kabanaysaa dagaalada ay marar badan martigelisay. Badaxaaw inta ay dowladdu maamulaysa muddadan sanadka maalmo qura ugu dhiman yihiin waxay yeelatay 3 gudoomiye degmo, halka madaxa maaliyaddu hadda xafiiska fadhiya askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka. reer Badaxaaw odayaasha, haweenka iyo dhalinyarada waxaa lagu xasuustaa siday iskaga difaaceen dowladda Kenya oo xilligaas darbi ka dhisaysay xuduudda ay wadaagaan labada dal, iyagoo garab iyo gaashaan toona ka helin dowladda federaalka. waxayna tusaale nool u noqdeen bulshada Soomaaliyeed. la soco barnaamijka qaybtiisa labaad oo aan kaga hadli doono amniga gobolka.